waran haddaan kugu dhaho ninka adduunka maalgashiga marka la dhaho ugu taajirsan lacagta capitalka uu maamulo waxay hoos aaday boqolkiiba konton 3 jeer noloshiisa. Video waxaan uga hadlayaa see u dhacday, maxaa sababay, sida ayuu uga soo kabsaday iyo waxyaalaha aan ka baran karno. Ninka wuxuu leeyahay shirkad la yiraahdo Berkshire Hathaway. Shirkaddan waa shirkad iyada xataa la maalgashan karo dadku u furan, laakiin waa shirkad anaga xaaraan nagu ah, waayo wuxuu ku shaqaystaa insurancyada iyo bangiyada waxaasuu ku shaqaystaa, marka ayuu invest garayaan dhahno, marka anaga wax noo furan maayo. Shirkaddan marka asliyan isaga ma aasaasin, si waxay kusoo gashay oo actually funny ah. Shirkaddan waxay ahayd shirkad samaysa marooyinka oo dharka laga tolo iyo dunta iyo waagaa hooyooyinka iyo dharka toli jiray, laakiin waxay business sii dhimanaya, waayo dukaamada waxaa la keeni jiray dhar oo jac tolan, harqaanleyda baabaaga dadka wax u toli jirtay, laakiin markay imaadeen shirkadihii oo dharka tolan keenayo harqaanleyda suuqiya ka baxeen, marka asaga waagaa ma uusan ahayn investor fiican siduu maanta u yahay. tii waxay keentay marka inuu maalgashan jiray shirkadahan oo ay ka taalo. shirkadaas buu wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka gato share. ninkii CEO-gii isla kulmeen, share xoogaa fiican buu ka gadanay. ninkii CEO wuxuu ku yiri dhima lahaanu anaga kaa gadan doono shareerkan hadda gadanaysid, anaga hadhow waxaan kaa gadan doonaa qiimo oo markaas suuqa intuu joogo in ka badan buu sheegay. marka waraaqii usoo diray marka oo ay wax contract wixii usoo diray oo la kala gadan lahaa, wuxuu arkay lacagtii uu ka sugayay lacag ka hooseyso ayuu ninkan usoo diray. ninka la yiraahdo Warren Buffett waa ku kacday, waa baxyay suuqa shareerka yaalana intuu ka gadan kara ka gata. wuxuu ku yeeshay shirkada dhexdeeda awood. ninkii CEO-ga naftiisu madaxa qabtay shirkadii buu ka tuuray, warshadii buu xiray. warshada waxuu kama soo socdaan warshadaani wuu xiray. wixii dhan markuu xiray cash baa usoo baxay. darteedii shirkadana wuxuu sii gadanaya percentage-ka ilaa uu hadda shirkada isaga wada yeeshay markaas. tii waxay keentay marka ninkii inuu iska helo shirkad isagana ma nin investor oo maaha nin CEO shirkad maamulo maaha. shirkadii marka wuxuu u bedelay lacagtii kaashkii wixii u jiray ayuu wuxuu bilaabay inuu invest gareeyo shirkado kale. marka waxaa jira nin asxaab ahaayeen oo la dhahay Charlie Munger oo ka noqon doono vice president shirkadan 1978. waxaan ku jirnaa weli 60 ku jirnaa. wuxuu ku yiri waxaad gadataa shirkado qiimo leh, saas buu aaminsanaa isaga. marka kaashka wuxuu ku gatay shirkado qiimo leh ayuu ku gatay. shirkadii tartiib waxay isu bedeshay shirkad maalgashi oo laakiin conglomerate camal ah. macnaheedu waxa weeyaan shirkadaha oo inuu marka toos uu la kulmo, share ka gato, share fiican ka gato, oo iyaga ay maamulaan CEO waxooda, laakiin waa isaga ku lahaada share fiican. diilasha qaarkood waxay ku dhacayaan suuqa gudihiisa oo financial marketka, diilasha qaarkeedna waxay si private ayuu u dhacaysa. bas markaas ninka isagoo shirkadii hab u helay oo ka bedel waxay ahayd oo maalgashay shirkadooyin qiimo leh oo aragta xoogaa isugu jirta, weliba shirkadaha insurance-ka aad u xiiseynaya waagaan. oo ninkii waxay ugu dubaridan yihiin. waxaa dhacday 1973 ilaa 74 waxaa dhacay waxa la yiraahdo bear market oo adaga dhacay. tiyo keentay sanadkaasiyata ka hor waxaa dhacay 69kii Masar iyo Israa'iil bas dagaalay. 72 dollarkii iyo goldiga ayuu Mareykankii kala furay, taasoo keentay in maantay ay ku jiraan 39 trillion oo deyn ah. waayo lacagtii interest baa saarnaa oo waxay noqotay marka interest compound markuu dhaco iskorkoraysaa marka suuqi markaaseeto Berkshire just suuqay ku dhex jirtaa. priceka shareka wuxuu joogay 90 markuu peak marayay, waxay hoos timaaday ilaa $40, taasoo keentay in ay 59% hoos u dhacdo. $40 waxaa jira 59% hoos u dhacdo. 59% igu soo dhawow ma ah. bada ninka caqligu yeeshay markaas oo u keentay inuu ka soo kabsado waxay ahayd waxa muusan gadin. shareerka dhan wuu hayay, wax kasta wuu hayay, taasoo keentay in ay usoo kabsato lacag. hadduu gadi lahaa waaga dee shirkadiisa wuxuu lusgarin lahaa 60% ayuu lusgarin lahaa shirkadii. maxaa la dhahaa shareerkii wixii uu lahaa. kadib 70-yada dhammaadkeeda Charlie Munger ayaa kasoo mid noqday vice president ka noqday shirkadda. markaas hadduu vice president ka ahaa ma hubo, laakiin shirkadda ayuu kasoo mid noqday. waxay noqdeen duo oo isku yaqaanaba oo maarkino investor marka dadka loogu tagay ay ahayd. sida saas ugu socotay 1998 waxaa soo baxay internetka websiteyo caadi ah
marka xisaadiyo wadarka sameynayo ma arkin waxyaalo saas camal intaas keli shaqadooda tahay waxaa lagu qiimeynaya billions of dollars ninkan yiraahdo Mark Cuban ma aqaan taqaana Mark Cuban wuxuu lahaa website la yiraahdo broadcast oo soo dhigi jiray sportiga videoyaal oo waxay ahaayeen quality waxay u xumeed saasoo tahay billions of dollars aa laga siiyey website ninkii meesha labada bilyan ugu horeysa ka keenaya meeshaas waay marka Warren Buffett muxuu sameeyey marka iyo arrimahan internetka oo .com ka ah ma uusan gadan hal shirkad ba allaha ka dhigay ma uusan gadan tii maxay keenay marka suuqa inuu cirka aadayo Warren Buffett maxaa la dhahaa shirkadiisa Berkshire ay dhulka gelayso waxaa dhacday marka shareholder inay ku dhahaan wani adduunka inaa la jaan qaadid waaye saa camal waxaad u fadhidaa insurance iyo banki iyo waxa loo joogi laakiin ninkan waxaa ka dhaadhacsaneed laba filosofiyo lahaa oo iswata midda koowaad waxa weeyaan shirkad aniga industriyadeeda aanan aqoonin ma maalgashto waa ina industriga aqaanasa u maalgashto tan kale waxa weeyaan shirkadahan 10 sano hadda kabacdi ma jiri doonaan waayo markuu asaga gato wuxuu hayaa sanadaad shirkado waxaa jira oo 30 sano 40 sano u hayo mama gadaa ninka hadduu gadaa wuxuu gadaa wax yar percentage yar laakiin ma gado tii marka waxay keentay iyaga waxay bilaabeen inay criticize gareeyaan 2000 baan maraynaa ninka wuxuu yiri aniga labadaas sabab darteeda uma gadanaya arrimahan kuma jiro isla sanadkii 2000 dhammaadkiisa iyo adiga intii ku xigtay waxaa dhacday suuqi .com-kana inuu gobolkii qarxo dhulka galaan shirkado ayaa shaarkooda wuxuu imaaday zero shirkadaha meesha ku baaba'ay website ay ahayn website iyo waxaa lala tegin jiray waxaa dhahay ipo lagu samayn jiray oo public share loo samayn jiray waa sida hadda AI nagu haysato marka dawaagaas meelaha marmaraysay haddana waa la janqaadi kara iyaga hadda haysana maaha ka noloshan wax ka bedeli doono si sax ah oo fiican iyo si xunba laba dhinac balaayadiisna wuu wataa khayrkiisna wuu wataa shirkadaha waxa naga bedeli doono waa shirkado kuwan xataa ha lahaadaan laakiin AI-yo waxay noqon doonaa soo bixi doona oo sii hagaagi doona oo keeni doona in faa'iido yeeshaan in the next 5 years I can say marka waan markay hoos aadayeen Berkshire waxay kor u kacday ilaa 70% taas oo garta siisay Warren Buffett waayo just because industry way cusub tahay ama waxa loo janqaadi doonaa meel cusub macnaheedu ma ina wax kasta faraha la gashay marka lesson maxaa la dhahaa lecture weyn baa meesha kasoo baxay hase ahaatee meeshaas laguma joogine 2008 soo ogtay waxaa dhacay financial crisis oo ay u sababeen bangiyada deynta dadka siinaya dadka deymaha waagaas lasi siinayay caadiyan awal deynta waxay ahayd 20 30 40% wax la imow hadmiiska wax un la imow ba ahayd heer waxay gaadhay 100% ba farta lagaa saaraya deynta oo dhan saxiix leh bis tiyo imaada dad badan oo awood u lehna guri gataan iyo guryahaas ka gataan oo ay u dhaco hamigan waalan greed maarkin oo ah oo sabab maaragtay oo inuusan suuq weligiis uusan hoos aadi doonin camal sidaasoo kale maadaama asagu u badnaa bangiyada iyo inshuransiyadana labadaas meel mar kastoo uu crash dhaco waa laba meel ugu horeyso la taa teeda kale bangiyada waxa deynta bixinaya isagana markaas wuxuu xataa gatay shirkado bangiyo Irish oo 90% valuegooda ama qiimahooda hoos u dhacay so you can imagine hoos aaday 50% iyo meesha waxaan ka baraynaa 2 cashar oo isaga iyo Charlie Munger banoo dhigeen midda koowaad waxa weeyaan adiga lacag dumin maysid haddii aadan iska gadin haddii shaarkaaga hoos kaa aado waxaa laga yaabaa inaad kribta ku jirtid kribtada saa ogtihiin ayamaha waa loo dhuujiyey caado yar adag marka haddii aad tahay qof hanku cusub oo piiggaga gatay waxaa laga yaabaa inaad isku dhex yaacday marka waa in ilaa aad sal tiraahdidna adiga waxba khasaari maysid soo la qiimihii baa hoos u dhacay marka sabarkaas ma yeelan doontaa oo qiimahaas kor usoo noqdo kribtana waa naqanaa qiimahana kor usoo noqdo meeshu kasoo da-ay uu kusoo noqdo waxay ku qaadanaysaa muddo badan hasan ama xilli jira marka sabarkeedaa lagaa yaraa waa maalgashi taas waa mid runtan waa mid ani wax badan iskaga kee bedeshay markaan forex kasoo baxay oo aan soo galay maalgashigan sida forex camal madaxa ku socday marka waa la yara edbiyey
waxyaalaha ka faa'iida weeyaan tani waa stop loss ma jiro marka wax maalgashanaysid suuqa ilaa halkaas hoose ma aaday oo zero kaasoo istaajiyo forex ma midda labaad ee aan maaragta wax badan aan ka faa'iiday idinkana islaa waa ka faa'iidi doontaa waxa weeyaan inuu dhahay Charlie Munger baa arrintan yiri wuxuu yidhi haddii aadan lahayn adkeysiga uu capitalkaaga 50% guduud kugu noqon karo haddaadan adkeysiga lahayn suuqan adilmoomu lagugu toogeliyo adaa xoogsanooy laguguma talagelin taas waxay ku tusaysaa in lagu dhaho sabarkeeda yeelo hay iska gadin adkeysigeeda yeelo wax kala samee lug aad oo 2 sano aad ku jirtid marka kaftanka ka sokow videogan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waa inuu insha allah videoga soo socdo wabilahi tawfiiq